السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا wanaagsan asxaabtada qaaliga ah meel joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal yar oo kooban oo aan doonayo inaan idinka gaarsiiyo kaasoo ah suuqa maalmihii dambe waxa uu yeelan waayay momentum ama dhaqaaq aad u xooggan oo kaliya kan dhala isku mid ah ay dhaqaaqayaan saan ogsoonahay suuqa waxa uu leeyahay bias waxa uu leeyahay intermodal waxa uu leeyahay target loo socdo sadarteed suuqa inta badan waxyaalaha dhaqaajiya waxaa ka mid ah newsyo waaweyn sida CPI, FOMC, PMI, NFB intaas ayaa suuqa dhaqaajisa. Haddaba haddii newsyo waaweyn oo suuqa jirin wax dhaqaaq aad u sareeya ma jiri karaan. Haddaba aan u soo laabto ciwaanka aan doonayo inaan ka hadlo kaasoo ah DXY iyo xaaladda ay haatan ku sugan tahay. DXY sida aan hore u ogsoonaynay waxaa ula soconay ama aan ugula jirsanaynay eexdeen waxay ahayd in baasyada sare nolo qaado sidoo kale waxaan ula jirsanayna waxay ahayd in uptrend ay noo tahay baasyadii long baasyadii dailyga ahaa waa inoo asturtay waa inoo qaaday hase yeeshee still DXY waxaan ula soconayna waxay tahay in baasyadii sare kaleeto ay jiraan sida weekly long baasyad liquidity oo ka sare asxaabta birlab FX still DXY waxaan ula jirsanaynaa waxay tahay in eexdeenu tahay mid aba GBUSD waxaan doonaynaa waxay tahay inaan weli aan ula jirsano eexda ah downtrend ilaa aan ka aragno suuqa wax soo kala wareejiya maybe in dhaqaaqyo pullback ah la arko balse hadafka ama targetka weyn ee aan u socono waxay tahay
in GBP/USD still ay down trend oo tahay. Sidaa darteed EUR/USD iyo GBP/USD weegada soo socda waxaan doorbidaynaa maybe EUR/USD haddii trade na siiso ma diidayno oo ruulka noo wada waafaqay, balse haddii labadu isku ruul noqdaan oo isku inter noqdaan waxaan doorbidaynaa inaan qaadano GBP/USD waayo still iyada weli nool oo down trend ah. asxaabta Bir Lab FX waan islaamaya meel walba joogtaan, waqtiga ha idin wacnaado, suuqana lacagihiina ha ku degdegina oo waxaad ogaataan trade xun trade la'aan ayaa dhaanta. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.